adaakoo filow jiitayaan dunida joogayni adigaa jidkii lagugu wadi jimiclaaneede jahanabaa la geeyo haddaad aakhiru jahato nimankii janno kacay warbay jirini shalleeye afartaa geddaan odhan jiray iyo gololadaydii dhe garbadaan ka soo horin jiray godolnaqaygii dhe madfac gaw yadhaahda iyo rasaas genidhigteedii dhe gulaamo roob da-ahaya iyo gababaxdiisii dhe gululaciya maya laysku daray galangalkoodii dhe unka guguguclayn iyo hilaac galalacdiisii dhe gal xareed haddaad soo gabraday gal iyo duufaan dhe bad gariirtay mawjado gurxamay gacamadii ayldhe shir la gooyey waayeel gab yidhi garangartiisii dhe xarir lagu gimaamadahayo gole firaasheed xaajada ninkii garanaya iyo gig iyo sheegeed dheh inuu halganka intaa la eg oo qayb yani ilaa beledweyne ilaa ayl ilaa haddii aanu galbari buuro badda maakhirka hoos ah ilaa haddii aanu ku leeyahay afaafka burco ilaa qoraxay iyo haddii aanu jigsiga inta udhaxaysa inuu xukumo oo daraawiisha xukunta sidee ku dhacday ingiriiska ka jawaabay taas waxay yidhaahdeen idinku ubadaasaati maskii ku jiray ingiriis waa maska ah idinkuna ubadaasaati inuu ku jiro balse idin kala saariya sheega nin ka mida waftigii oo dhalinyaraaba bud la booday iyo isku burburiyey badiyo maskii de saas buu yidhi jisuhu saasaa la isugu burburinaya wey haddii kalada iska saara bahalka wuxuu ahaa nin mujaahida oo xiniya caddaa oo gaala iyo cawaankeed wadanka ka hiray dhulkeenna ka hiray nin darwiisha oo haddii alla kuu roon yahay baan u sheegay gabaygaasoo waxaan idhi nin haddii alla kuu roon yahay ingiriis aha arkado wuxuu yidhi waa gabay bahalnimo iyo aadamanimadu ku yar tahay oo bahalnimo ka muuqato qof mayda in sidaas looga hadlaana sayidku waa ku qaldanaa waxayna muujinaysaa inuu ahaa haddii alla kuu roon yahay dhiigyacab ninkii darwiishka ahaa markaan intaa u sheegay wuxuu yidhi ma ku tiri adigu burco iyo beer maxaa ka soo doontay oo ku keenay kuma odhan baa idhi hal madow higaad iyo qur-aan ha iyo wow reeban hanadnimo iyo hooyaalo gabay heello iyo maanso nin kastaa naftiisa ha hafrehoodo anigaale bul kini adeegiisii markii la yidhi dhulka soomaalida inta badan xukun ingiriiska iyo talyaaniga usoo jeediyeen wuxuu yidhi haddii seefo iyo maare iyo sumuc la ii qaato cadaawuhu hadday igu soraan saqaranaareedda meeshiiyo sawaakimi haddii la iga seeraarsho sakadii cadmeediya haddii saaxil la igeeyo faranjiga la saayiiro haddii la igu soo yaansho samci maayo sawdaan ahayn siinka looxa ah rabbaa deeqle roob baa qabow ruqa abaar baa le bad baa reen le aar baa ridamar horis faras baa le janna ruga raxmaan baa barya le raacis nebi baa le wardaa rogis le weli baa rila le rabid shareeca le run baa fiican been baa rafacan raran cadaab baa le rataa xoog le geel baa rukale ramad haleelaa leh waa jaadadka ugu adag ee gabayga la tiriyo nin adeega faranjiya amba awrtaba u qala amba arigaba u qala amba uba ilaala ah ama uurka kala jira ashahaado beeniyo islaamnimaha lagu dhaqo ilaahayna ma ogolaana kama aqbali karo muslimnimo nimaan kugu dhaqayn muuminnimo khaasa gaal maxasta kuu dhowrood magansataa dhaama cali isagu sidaasuu u gebiyey oo macnihii heeraabtaasuu taagnaa sayid maxamedna wuxuu lahaa dagaalkii nasaarada kiristanka dagaalkii nasaarada anaa daalib ku ahaa dalka malihid anigaa ku idhi doora weynaha diintayda anigaan ku gadan dabaqi naareed anaa labada daro tan hore darajo mooday heerkaa iyo heeraabta intaa leeg buu taagnaa dhacdada koowaade waxay ahayd xeebta iyo dekeda berbera oo ninkii ingiriisiya joogay ama askartiisii ay sayidka weydiiyeen inuu cashuur bixiyo alaabtii uu watay oo xajka kala yimid markaasna uu yaabay oo yidhi adiga waxaad ku tidhaahdaa ninka ingiriis yaa adiga cashuur kaa qaaday markaad soo degtay markaan daraawiishta ahaa ayuu sayidku odhan jiray buu ihi anigu gacanta ilaahay baan ku jiraaye bal cidda igala baxda ayaan eegaya erigii baan xusuga markuu banaantii oo noo muuqan lahayd oo keenkii naga xigto uu gaarkii inaga celiya meesha
in ereyga xusuustay buu ninkani gabaygu wuxuu ahaa meeluu ereyga iskaga kala raseeyo ereyga ku jira iyo kaydka af Soomaaliya ku jira ninka farihiisa halkan aad ka dareemaysa wuxuu yiri inan suura aqal saari badan dadab la seensaabay 30 baaro saablay gingama sarabe ayagta sali gogol saahood la shaday saaqatada qaaca sanifaad xariiriya baftiya khayl iyo suuti sangaburan soogaan darmaan salaba guudar la sid ka ramada seeyi idii soobiriya ay rimay sarare weyn golso kaban qalma surun suura markale wuxuu yiri dawa lagama helo gaal hadda daawo dhigataane waa idin dagaaya kufriga aad u dabcaysaane dirhamku idin qubahaya dib u go'aysaane marka hore dabku idin ka dhigi dumar sidiisii marka xigana daabaqada yu idin dareensiine marka xiga dalku idin ku oran duuyo dhaabsada marka xiga dushu idin ka rari sida dameeraade marsa hadaan dushii adari iyo iimay dacal dhaafay maxaad igaga digataan baruusiin la soo degi gabayga taxdaasi waxay ka mid tahay u dambeysay waxay ka mid ahayd gabayga la yiraahdo dardaaran ee uu sayidku ku dardaarmay waana gabayadiisa kuwii ugu dambeeyay midkood hadduusan ahaynba kii u dambeeyay taariikh ninka gumaysi la dagaalamay ku soo dulo cadowga ninkaas ma taariikhda ku geli karo taalla iyo xusiyo iyo qiimeyn mudan laakiin gumaysiga uu adeegay oo dabadhiil fu ahaa oo kaba qaad u ahaa oo dalkiisa iyo dadkiisa ku burburinayay maxaa qiimo bulshada dhexdeeda ku leeyahay tima cadde wuxuu yiri sayidkii taleex degay markay turuntureynaysa hadday taabacaan maalintii tani ma joogteen buu oo gaalku inaguma maceeysteen